ciidankii daacaddu waxaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen markaan waxay doonayaan inay si qasab ah kula wareegaan magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa ciidamo ka baxay degmada Walaweyn ee gaaray ciidankii daacaddu waxaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo afhayeenkii maamulkaasi Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo xogo dheeriya ka soo saaray ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. soo dhawaada daawadayaal, taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 29 bisha May ee sanadda 2026. haddii aynu ku horeyno ciidamo ka baxay degmada Walaweyn ayaa waxay gaareen duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, halkaasina waxay doonayaan inay ku biiraan ciidankii daacaddu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. ciidankii Laftagareen hore ugu sugnaa duleedka magaalada Baydhabo ayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan waxay ka wadaan duleedka magaaladaasi, waxayna doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo bilii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya si qasab ah kaga saartay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo taliyihii markaasi ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo isna xilka laga qaaday ayaa waxay ku sugnaayeen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, halkaasi ay kulamo kala duwan ka wadeen. ciidamo ku sugnaa waa markaasi deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan duleedka gobolka Gedo ayaa muddooyinkii u dambeeyay halkaasi isku urursanayay ayaa hadda waxay ku sugan yihiin duleedka magaalada Baydhabo, halkaasi ay doonayaan inay dib ula wareegaan waa markaasi magaalada inay dib ula wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wixii ka dambeeyay markii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen lagala wareegay magaalada Baydhabo waxaa socday dhaqdhaqaaqyo kala duwan ee wadaan ciidamadii daacaddu ah madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada duleedka magaalada Baydhabo. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed afhayeenkii maamulkaasi ciidamo horkacayo ayaa xilligan waxay ku sugan yihiin duleedka magaalada Baydhabo iyagoo doonaya in maalmaha soo aadan ay ku dhaqaaqaan wadadii ay kula wareegi lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya Baydhabo waxay ka qabatay doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, halkaasina waxaa ku sugan gudoomiyaha golaha shacabka haatan ah Shaqaadan Maxamed Nuur Madoobe iyo hogaamiyaha ku meel gaarka ugu magacaaban dowladda federaalka ee Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, waxayna kulamo kala duwan ka wadaan magaaladaasi. waxayna dowladdu ay bisha Juun ay soo socotay doonaysaa inay ka qabato doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana xisbiga GSP kaarkiisa ku tartamaya gudoomiyaha haatan ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Shaqaadan Nuur Madoobe oo khudbad ka jeediyay maalmihii la soo dhaafay magaalada waa markaasi Baydhabo waxa uu sheegay in ammaanka magaaladaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka marqaata dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, halka Laftagareen uu ku doodayo inuu ku sugan yahay qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo uuna doonayo inuu si rasmi ah uu gacanta ugu dhigo magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ayaa ka soconaya gudaha magaalada Baydhabo. ciidamadii Laftagareen ee ku sugan duleedkaasi ayaana dhaqdhaqaaqyo kala duwan waxay ka wadaan halkaasi, iyadoo markaasi bishan bilowgeedii 2 taliye guuto lagu dilay gudaha magaalada Baydhabo, kaasi oo si weyn dowladda federaalka Soomaaliya ay uga carootay. ciidamo badan ayayna geysay duleedka magaalada Baydhabo, waxayna sheegtay in markaasi la sugi doono ammaanka magaalada Baydhabo. kooxda Al-Shabaab ayaana sheegatay dilka saraakiisha si lagu dilay gudaha magaalada Baydhabo, hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku eedeysay saraakiishaasi inay ka dambeeyeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, kuwaasi ay sheegteen si isku mid ah loola dagaalami doono waa ciidamada daacaddu Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. wixii intaasi ka dambeeyay ciidamadii Laftagareen daacaddu ah iyagu waxay markaasi abaabulo kala duwan ay ku wadeen duleedka magaaladaasi, waxayna doonayaan inay si rasmi ah ula wareegaan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo laga saaray magaalada Baydhabo kadib doorasho oo hal maalin oo ku qabsaday tan golaha wakiilada, tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaa markaasi dowladdu waxay si qasab ah halkaas uga saartay cudud ciidan oo ay geysay duleedka magaaladaasi. haddaba waxyaabaha ka soo kordha ciidamada Laftagareen oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada duleedka magaalada Baydhabo iyo kuwa Walaweyn ka baxay ee gaara duleedka magaaladaasi waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan. balse marka hore daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo birtaan halkan si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay ee markaasi naga soo gaaro gudaha dalka. aad baad u mahadsantihiin.